dhammaan waan igu salaamayaa Idris iyo dadka saaran waxaan leeyahay Ramadaan wanaagsan. Waxaan doonayaa update yar oo inaan ku saabsan xagan green card-ka inaan su'aal idinka weydiiyo oo ah qofka haddii lagu siiyo asylum lagu siiyo green card iyo haddii green card ama qaxoonti ama si kale oo ku helo miyayna kala duwaneen like qofkii inuu ku noqdo wadankii uu dhibaatada ka sheegtay hadhow من charge كما يعني قوان كي هراء لغوسية هادو قفكي سي سيف لغو سوى نقضى مينا نقوني قفكي إنو يعني أسايلم كيساس منو حبكة جيرين warre horta qofka asylum isku dhiibay oo case-kiisa asylum ahaa oo meeshuu ka soo cararay ku laabanayo asagaba baxar isgelinayaba asylum iyo qaxootinimada dadka ku imaaday ama dadka sponsorka lagu keenay caseska horta qofka wuxuu Trump administration-ka ninka la yiraahdo Marco Rubio oo ah maaragtay Secretary of State-ka ah original u dhashay Cuba arrintan uu ka hadlaa inta badan wuxuu dhahaa waliba Cubanka asaga meeshu ka imaaday Cuba ayuu aad uga hadlaa wuxuu yiraahdaa Cubanka waxay ka soo cararaan buu yiraahdaa mataqaanaa Fidel Castro iyo waxa meesha hadda haystay Castro ay ka soo cararaan America imaadaan asylum bay xareystaan kadib markay helaan sharciga inay tfoorka green card markay helaan Cuba ku laabtaan buu yiri marka how do you want to tell us ina ka soo carartay nimankaas haddana marka sharci hesha ku laabanayso arintaas wax badan ay ka hadleen marka haddana waxa la waa case by case way qofku wuxuu qortay ku xiran tahay maybe waxa laga yaabaa marka cid uu ka soo cararay wixii uu sheegtay balaayada uu sheegtay in hadda minority yihiin oo meeshii waxba ka ahayn baa laga yaabaa maybe wixii uu ka soo cararay in dhintay baa laga yaabaa maybe in argixisay laga guulaysta laga yaabaa case by case waaye oo wadanka oo dhan mamnuuc kama noqon karo laakiin de qof walba asaga is ogay hadaa tiri de Soomaaliya oo dhan baa raadsanaysa hadaa tiri Soomaaliya lagu qora xarkin dad ma santahay saad u cadaysay dadka badan baan fahansaneen moogtahay yani wadankii green card bay qaadanayaan wadankii bay ku laabanayaan moogtahay hadhow markay ka soo noqdaan dhib kala kulmaya wadanka dad dhib ka sheegato no matter what ilaa citizen ka noqonayso sharci fiican ka helayso inaad ku noqotaa ma fiicna marka dad baa markay green card ka helaan toos wadankii ay dhibta ka sheegteen uu aadaya macnaheedu wadankii safe waaye weli citizen ma noqonin anything baa laga noqon karaa ay shukri so walaalkay waxaan rabay inaan ogaado gabar walaashay waxaa jirto team derby ah derbiga markay ka soo booday kadib maxkamaddu waa martay waxaa la dhahay kiis culus waaye laakiin Biden xilligoo joogay wuxuu madnuucay qofkii sharci darro wadanku soo galay inaysan isheeg alla siinin sharci marka Biden ilaa hadda waxa migration-ka yaalo saxiixii Biden waxa la wadanka waa ku noolaan kartaa laakiin ma ka bixi kartid mana lagu tarxiili karo waxna ma u dacwoon kartid niyo kiiskaas qof saas camal ma la arko wali mise qofku ugu horeeyay waaye السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أي كسر. حاجة أبديت نوعي كده وجن أنت نورت أبديت كده أنا نقول لي قبل ده هرت عون جوابه هرت ولا شيء دي محكمة تصدق فرصات باجرة شرع إن لوجود يدو إن لوجوسيو إن لوجو إراهدو شرعي والوجود يدو لكن وضع كوت ولا كرتا لقى xerooyin qaxootiga gabadha madalbiga ka soo booday bayda baa ku qabanay waxa weeyaan waa sharci soo baxa bishii shanaad 11keegii oo dhahaysay qofku intuusan darbiga ka soo boodin waa inuu CPP1 uu buuxsado oo halkan mar horena aan kaga hadlo in la xasuusanayo ma garanayo marka waa kaas weeyaan laakiin waxa la kiiskaas hadii immigration-ka laga tirtiro sharciga waxa lagu soo diraa adreskaaga adoo maxkamad aadin okay laakiin horta taas way jirtaa hadii uu ku dhahay wadanka laga ma tarxiilayo aanu intii muxuu aan ogahay oo charges-kana aan ka dhex arkay waxa jira saddexaad oo ah qofka in lagu dhaho sharci muxuu ahaa laguma siina laakiin wadanka laga ma saarayo maalintu dalkaagu nabad noqdo ayaa lagu celin amba maalintada adigu go'aansatid laakiin qofka hadii uu guursado sharciga uu helaya soo kale waxa jirta dad muxuu ahaa parole
muxuu ahaa markuu darbiga kasoo booda la siiyey oo dabadeed guursada oo sharci helay iyaduna way jirtaa marka inta aniga aqoonteeda waa intaas intan update in siin lahaa horta kolleyda wax badan oo wanaagsan waa laga soo sheekeeyey waa la soo sheegay ana in yar horta qalbadiina jibisaan idin sheegay ducadana waa idin maraysaan madaxweynaha shacabka ayuu siinayaa warbixinta wuxuu leeyahay hal la qiimeeyo hal sanaan dhamaystay Soomaaliya State of Unionka lagu sheegay waxa weeye hal sanaan dhamaystay hal la qiimeeyo shacabow waxaan idin qabtay gaaska intaan ka dhigay groceryga intaan ka dhigay kaas ay adigu beel iyo runbu isku daraya marka qiimeyntii waxa hortaagnaa wuxuu hortaagan yahay waa labada aqal iyo Supreme Court iyo intaasoo guest uu hortaagan yahay waa hal sano waay halkaas sano markuu dhameesto la qiimeeyo sanadka kale waxa lagu qiimeeyaa labadaas sano xilka uu hayay ayaa doorasho dhacayso every 2 years doorasho dhacdo oo house-ka ah doorashadaas marka waxay ka turjuntaa madaxweynaha shaqadiisa ama xisbiga marka haayo ee awoodda White House-ka haysta shaqadii ay qabteen natiijada ka turjuntaa haddii hadda November markii la gaaro aqalka sare aqalka hoose labadoo laga qabsado waxay ka dhigan tahay in ay xisbiga Republicaanka ah shaqadii loo dirsaday shaqaan ahayn inay qabteen ay ka dhigan tahay hadday guuleystaan hadda waaba kaasba and I don't know inay say arinta ku dhacaysa Allahu a'lam ma maanteen marka isqiimeyntaas muhiim bay ahayd taas waa aragnay waxay natiijada ka soo baxday Trump iyo nacnacdiisa iyo Twitterka iyo waxaasi waa iska soconaysa taas Soomaalida waa saan Soomaalida waa kan Soomaalida waa kuus iska wadwadaya weligiis laakiin dhibaatada haysata Mareykanka hadday Soomaaliyo dhan kooda cusub iyo kii konton sano wadanka deganaa ay tarxiilaan حتى 0.0001 حتى كما بدليسو أمريكا waxay u afduuban tahay ururo la yiraahdo lobbyist wadanka afduub buu ku jiraa afduub caadi ah wadan kala haystay Israa'iil waxa iskiilow America wadan waxa weeye ay lobbyistiga ay awood aad u weyn leeyihiin hada tusaale qoryaha kale adiga umadan ma aragtay sanadkiiba intaasoo mar inta qof maaragtay qori intuu iskuul la taga caruur yar yar laynayo markuu saa u soo laayana miidiyaha dagaal ka dhacaya laba group loo kala safanayo qoryaha la joojiyo ee mid dhahayo qoryaha problemka ma aha ee qofka waay mar video game la blame gareeya mar mental illness ka la blame gareeya marba waxba la blame gareeya caruur baa la laynaya caruur and that's not normal يا هرتاغن أمريكا يا هرتاغن إن قولي لا ممنوعه يا هرتاغن وحا هرتاغن شركة وين لوبيست وين اللي يراهدو NRA National Rifle Association وحاوي واللوبيستيغا ugu waaweyn waaye oo Congress waa bataqana Washington DC xiniyaha hayaan Congress-ka halkii qof oo Congress oo maanta ka hadla qori baa la mamnuucaya ama mid yar ha ahaado ama mid weyn ha ahaado way la kacayaan lacag bay ku bixinayaan in dib loo soo dooran oo ka leexanaya markuu ka aamusaya donation way siinayaan si loo soo doorto okay organization kale dadku AIPAC kaliya yaqaanaan laakiin ilaa ay 10 organization jiro oo AIPAC ah oo arrimaha Israa'iil bas ka shaqeeyo RJS kuwa la yiraahdo oo la yiraahdo Republican Jewish Committee la yiraahdo kuwa ZAW la yiraahdo jiro Zionist organization kuwa waxaa jira mataqaanaa American Israel ma taqaanaa something la yiraahdo oo naagtii dhahaysay Trump 250 milyan aan ku siinayaa haddii aad diyaar u tahay doorasho saddexaad inaad soo tartanto aan donation ahaan ku siinayaa dhahaysay yahuudiyadda ahayd organization waaweyn waxaa jiro lobbyist ah oo u dagaalama arrimaha Israa'iil u dagaalama oo dhinac laga soo mari karin marka Congress-ka
isku daya inuu arrimahaas faragashto laba mid baa laga rabaa bes inuu soo galo inuu dad asaga dooranayo isku halayn karo inuu haysto oo boqolkiiba boqol ka soo horjeeda arrintan oo codkooda isku hubo ay wax ka sheegi karaa Israa'iil ama inuu lacagta ay ku fangareynayaan campaignkiisa in laga qaado lacag ka badan inuu haysto waddankan dimuqraadiyadda ka jirta waa lacag qofka inuu kursi qabto millions of dollars u baahan yahay haddaad millions of dollars aad bixin karin kursi waa ka xaraan lacag malaayiin dollar kugu bixayso organization-ka the APAC oo kale qof buu wuxuu siinayaa 700,000 ay wuxuu leeyahay waxaan ku bixinaynaa campaign-kaaga markaas qofkaas wuxuu haddana soo aruurinayaa lacag kale oo haddana isla APAC ay u fududeynayso oo meeting iyo fundraiser ay u qabanayso ilaa 3 milyan 4 milyan ka badan kale war average dadkan masaakiinta ee shacabka Mareykanka boqolkiiba 60 ama boqolkiiba 60 ay xogaa leeyahay paycheck to paycheck ku jiraan goormay kursi u tartami karaan waa habeenka xal oo tagay way kursi ka yaabin inay u tartamaan marka taas waxay keenaysaa doorashada waa very expensive afka inuu kursi qabto marka taasna waa update-ka lobbyist-ga waaye Somali interest group ila sameystaa ahayd anaga danaheena kuwa ka shaqeeya kaada dadkan soo qabtay bismillaahir rahmaanir rahiim hayay